sharmaako miswal madaxaagan ku daay anoo miswal adiga darta aanan kula dagaalinin shalay toole oo ilaahay og yahay oo shalay toole aniga miswal aan isku qabanay wax weyna og tahay jinni dartiis baan isku qabanay madaxaagan ugu dambeyn miswal oo ka guuleysatay hudaamuun oo hooyin afka furatay maadaama miswal ay kala wareegtay seegeeda sharmaarke miswal oo hadda oo aad iyo aad ugu guuleysatay hudaamuun oo live bartaasi social media ee TikTok ee soo kortay oo hinna afka furatay oo aad iyo aad u oohisay oo nacafisay maadaama ay darteeda miswal ay daasay miswal waxa ay ku daasay iyo sababaha ay ku daasayna ay cadeysay si aan kula wadaago fadlan nagu soo biiro channelka subscribe dheh gambaleelkan oo furo muuqaalkana like tal wixii fikir aad ka qabtid qaybta commentiga noola wadaag barihii ugu dambeeyay dagaalka baraha bulshada ee barta social media gaar ahaan aaladda TikTok oo qabsaday miswal iyo hudaamuun iyo miswal oo dagaalo hanjabaad ah baraha bulshada ee TikTok live isku marsiinayay dad caan ay kala dhexgaleen ay dhaheen dad baraha bulshada caanka ayaa tiin dagaal lama fiicno ee kala dhexbaxa markii ugu dambeysay oo soo shacbaxday in ay sharmaarke iyo hudaamuun ay kala tageen ayaa la sheegay hudaamuun saygeeda sharmaarke in uu la saftay qoftii hudaamuun cadowgeeda eed ama ay isdagaalsanayeen miswal oo dagaalka kala dhaxeeyay agteedan uu ka soo saftay hudaamuun oo jim ay isku arkeen miswal ay ratay in ay isdagaalaan ama ay beerka ka tumta ay garaacdo ayaa odageeda saygeeda sharmaarka ayaa la soo saftay oo yiri maxaa ka rataa iyo gabadha waxaas ayaa hudaamuun markii arintaas soo aragtay saygeeda ee ciyaalkeeda xaajiga ee ciyaalkeeda u hayso oo la soo saftay miswal markuu arkay arintaas ay aragtay hudaamuun ayay iska soo baxday ayadoo qalbi jabsan baraha bulshada ee barta social media ayay live ka soo kortay dad badan oo baraha bulshada caanka ah ayaa arinta ku celcelinaya gaar ahaan dadkeeda qaar ka mid ah ayaa markii sharmaarke live la soo koray oo la dhahay dadkeeda ayaa nahay iyo waxaas ay arimaha in la dhexgala la isku dayay dad baraha bulshada caanka ah ayaa daawaday arimahaasi in ay dhexgalaan isku dayeen oona sheegeen miswal oo markii hadda la sheegay in ay guusha dhankeeda bahawada ay u martay maadaama hudaamuun ee xaajigeedaba kala wareegtay xaajigeedii ayadana ay kala tageen maanta hubka ugu weyn ee miswal ku dagaalamaysan in ay hudaamuun xaajigeeda ay haasato taasina ay number 1 tahay midda kaleetana hudaamuun ay live TikTok ka dhex oosay eena sheegtay in miswal maadaama ay rabtay in ay iska celiso baraha bulshada marar badan ee isku hawada ay dagaal isku marinayaan markii live ay isku arkay inay iska celisaratan sharmaarke kala dhexgalay dhankaasi miswalna uu ka xigsaday xaaskiisii hore ay kala tageen hudaamuun oo hinta ceshan weyse ayaa live-ka TikTok ayadoo la saaran yahay ay ku dhex oysay aad iyo aadna ay u oysay maadaama ay ilinteeda ceshan weysay eena sheegtay saygeeda ama xaajigeeda uu kala saftay ayadoo xaaskeeda ay ubad ay u hayso uu kala saftay miswal wixii muuqaaleen mar kale ayaan kulmi doonaa sida